fursadan dahabiga ah ee ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda Soomaaliyeed horta ma la socdaan madaxdeena fursadan qaaliga ah ma og wax ma ka ogyihiin si fiican ay barnaamijkan qaybta dambe ugu falanqeyn doonaa fursadan hadda idin sheegayo laakiin war degdeg ah maanta saxaafadda qaar waxay qorayaan ninka ugu sarreeyo gaashaandhigga Itoobiyaanka inuu ka degay magaalada Muqdisho qaab qarsoodi ah wuxuu la kulmay Major General Odowa waxaa la kala saxiixday heshiis loo yaqaan ama loo soo gaabiyo SOFA oo u taagan status of force agreement muxuu yahay status of force agreement si kooban waxaa rabaa inaan idin soo qaato tusaale gabadhan hadlayso kadib markii South Sudan adig macnaha si fiican u falanqeyn doonaa laakiin dadka Ingiriiska yaqaano way fahmi doonaan gabadhan horta hadalkeeda si kooban idin fasaxo. This status of forces agreement has a very important provisions that lies the foundation for our cooperation with the new government and the new republic. On the one hand, the South Sudan government has committed itself to protect UN personnel, grant its immunities and privileges, and ensure that its security is in place. On our side, in the UN mission, we are also obliged to follow international conventions. Make sure magaalada Muqdisho lagu wada saxiixday labada madax ee ugu sarreeyso xagga abaanduulaha ama abaanduulnimada ciidamada qaranka labada dalba heshiiska lagu sheegay waa kaas gabadhaas oo soo qabtay gabadha maxay tiri hadda afka fahantay waa fahantay laakiin waxa rabaa dadka afahmin inaan si kooban u sharaxo waxay leedahay gabadha heshiiskan wuxuu dhigayaa in ciidamada UN-ka ilaan soo Suudaan ciidamada UN joogo ciidamada UN-ka inay meel iska fadhin doonaan oo ayaga laftirkooda amnigooda la sugayo heshiiska waxa ku jiro Suudaan ciidamay qabtaa in aad okay dhanka Soomaaliya ay idin sharxo Itoobiyaanka heshiiskan wuxuu ku soo daray oo waliba Soomaaliya uu ka saxiixday in ayaga saldhigooda ay iska sii joogayaan oo Itoobiyaanka si buuxdo ayuu uga mid noqday ciidamada loo yaqaan awesome meel ay fadhiisanayaan dagaal ma galayaan fiiriya dagaal ma galayaan oo talaabo ma qaadayaan ciidamada dagaalka galaayo ku dhimanayo naftooda huraayo silcayo saxriiraayo oo haddana $50 ee caanaha ay ku gataan xaasaskooda wali guriga jingada ay degan yihiin waa ciidamada qaranka ee Soomaaliyeed waay Itoobiyaanka wuxuu difaacayaa meelaha muhiimka ah bas madaxtooyada Baydhabo madaxtooyada Beledweyne madaxtooyada Hirshabeelle wax noocaas oo heshiiska ah ku jiro maadaama aysan qodob noogu soo bandhigin aniga saasa u fahmi macnaha dawladdu wali kama hadlin hadday kulli ka hadli doonaan waa sugeena hadday ka hadli waayaan aniga intaas ay idin soo bandhigay waxba ka jiro inta soo alifaatay Soomaa gabadha hadalkeeda daa fahantay waa kaas waa ka gudbaya marka barnaamijka waxaan rabaa inaan u gudbo qaybtii idin sheegayay fursadan dahabiga ah ee Soomaaliya hortaala maanta waa rigooro caadi ah waaye Ronaldo haysta Ronaldo Soomaaliya dan ayaa ugu jirto marka si u fiirisid qalalaasaha ka soo cusboonaaday badan loo yaqaano kanaal Suez-ka oo Masar marto oo hadda xuutiyiinta nafta u keeneen ummadii waxa ogaataa boqolkiiba 80 maraakiibta dhulkaas mari jirtay gas ay u siiyeen hadda dhanka Soomaaliya qariirada Afrika waa taasa dhanka Soomaaliya intay ka wareegaan ay gadaal maraan dadkii maraakiibta iska lahaay gaar ahaan Shiineeska iyo Hindi fiiri barnaamijkan waxa rabaa qof walba Soomaaliya inuu dhigaa u furo dad waxa ku dhahay adduunku wuxuu noqday adduun ganacsi oo isku xiran Shiina oo alaab laga keenaa America loo dhoofiyaa America iyo Shiina waxa dhexda ku jiro Afrika tusaale ahaan markii New York iyo Boston iyo ay rabaan inay badeecada ka soo Hindi sidoo kale waxay bilowday inay alaab marka sanadkan 2025 fursadan dahabiga Soomaaliya horta la idin sheegaya Soomaaliya waa dariiqa ama albaabka laga galo Afrika way adiga fiiri qariirada niyo war wax barta war bilaa calaykum geedaan afdisiin waxba idin mitarays albaabka ugu weyn ee maanta Afrika laga galo waa Soomaaliya fiiri qariiradaas quruxda badan waa Soomaaliya maadaama dhankan Masar fiiri hadda saddexda dariiq ee badeed ee adduunka ugu badan la isticmaalo ma taqaana kaalinta koowaad waxa galay kanaal Suez-ka Masar oo hadda qarribmay oo xuutiyiinta ay nafta u keeneen oo Iran ay nafta u keentay kanaal Suez marka sheekadiisa hoos u dhacday Masar lacag fara badan ka khasaartay intaas milifant kanaal Suez hadduu xirmo dariiqa kale ee furan waa kee adiga isweydii waa Soomaaliya daa ku dhakoor Soomaaliya way haddaa ku dhaho ka waran adiga sababta ku sheegaya sababta laakiin ay dambayso waxa rabaa kanaal Suez mid ka koowaad maadaama uu yahay midka labaad ee adduunka loogu isticmaalka badaya dhanka badda waa waxa loo yaqaan Panama Canal oo Mareykan oo Donald Trump uu hadda yiri waa qabsanaya xoog oo qabsana hadalkiisu waa haysan Donald Trump oo dhahayo Panama Canal
xoog waa inaan ku qabsado maadaama uu yahay marinka labaad ee adduunka maraakiibta ay aad ku isticmaalaan marinka saddexaad ee la isticmaalo mataqaana waa hormuus iiraan iyo dhulkan carabta meeshaas u dhexaysa waaye asagane qalalaasaa ka bilowday waxay u muuqataa yuhuudda iyo iiraan inay isku farasaari doonaan ayay u muuqataa fursaddaa idiin sheegaayo bingo waatan marka fursaddaa idiin sheegaayo waatan soomaaliya fursaddan dahabiga ah qalalaasaha kanaal suweyska ka socdo midka panama ka socdo midka hormuus ka socdo intaasoo dhan waxay dan ugu jirtaa soomaaliya waa fursaddii aan ku taajiri laheen oo dad qani ah taajiriin ah oo dhergey ah ku noqon laheen waaye madaxdeena ma fahansan yihiin walaalo madaxdeena fursaddan qaaliga ah ma fahansan yihiin fiiri shiine meelaha uu wax u dhoofiyo waxa ugu badan afrikana albaabka laga galo waa soomaaliya adiga laftirkaada fiiri shiinaha markaa kasoo baxdid oo afrika aad soo aadaysid awal shiina masar uu geli jiray dhankaaska hormuuskaasuu geli jiray masar waxaa saaran laamiyo dhaadheer oo qurux badan iyo wadooyin tareena saaran jabuuti sidoo kale ayadana way ka laakiin maadaama soomaaliya dhul weynin badan oo baaxid soomaaliya qariiradeeda wataasaa qaybta carabta dhanaa dul saaray sidaa u weynaha fiiri kuweydaa ka weynahay qadaraa ka weynahay jordanaa ka weynahay baxreynaa ka weynahay war dal intaasoo daloo dhan ka weynaanahay tusaaleera idin soo qaadanaa dalkan loo yaqaana qatar sidiisaba wuxuu la egyahay magaalada muqdisho ilaa shabeellada hoose shabeellada dhexe saddexdaas gobol basuu asaga dhan la egyahay dal dhan waayo meeqa dekedaa ku taala mataqaanaa waxaa ku taalo 8 dekedood ayaa ku taala dalkan saan u yar oo muqdisho iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose la eg marka heshiis waa sababta kuwait iyo masar ee hadda u dhisayaan dekeda baraawe dhismaa ka bilowda kuwait iyo masar dhisanayo qatar iyo masar iyo turkiga iyo maxaa la dhihi jiray dalalkan carabta imaaraadka carabta markii laga reebo oo dhankan waqooyi isagu u cararay boosaaso iyo berberi iska haysto dalalkan kale ee carabta ah heshiis waxaa jiro 8 dekedood oo qurux badan kasoo bilow kismaayo baraawe ku xiji magaalada muqdisho cadalle ku sii xiji ilaa maxaa la dhihi jiray ilaa hobyo laga gaaro xitaa xaradheere intaas waxaa qorsheysan dekado waaweyn oo qurux badan in la saaro oo laga dhiso Etoobiyaanka marka heshiiskan dawladda habeen walbaba uu la galaayo intaas waxay ka tahay lugta uuna ha ku gasho mashruucyadan socdo ee dekadaha iyo badda ma fahansanahay anaga cadowtinimada socoto iyo fursadaha dahabiga ee hor yaal ummadda Soomaaliyeed ee ahlu aqliga wax bartay intaas su'aal bas idinka ka tagay